السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن دلهانتين بميل كستود كسوغنتين داوديال كسو دواده برنامجka doorka dhalinyarada Ariel TV. daawada barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa dhalinyarada Soomaaliland xaaladda waxbarasho hal abuur doorkay ku leeyihiin siyaasadda iyo waxyaabaha kale la xiriira nolosha dhalinyarada. daawada toddobaadkan barnaamijka waxa ugu casuuman qoraa da'yar Xamse Saciid Maxamed Xamse Turaale. xamse walaal ku soo dhawo barnaamijka doorka dhalinyarada Ariel TV. aad iyo aad baad maasantahay walaal asmaan ku dhawahay. xamse in badan ayaan arki jiray qoraaladaada iyo muuqaaladaada quruxda badan leed bulshada la wadaagtid. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay toddobaadkan in aad barnaamijka igala qayb qaadanaysid. mar koobaad mar labaad mar saddexaad ku soo dhawo barnaamijka. sidee qofka dhalinyarada ah u dhisi karaa hadafkiisa nololeed? aad iyo aad baad maasantahay. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo qayb galo barnaamijka dhalinyarada Ariel TV. su'aasha haddii aan toos u galo noqonaysa qaabka qofka dhalinyartii uu dhisan karayo hadafkiisa. waxaa jira siyaabo fara badan oo qofka u saamixi karaysa in uu awood yeesho bal inuu dhisto hadaf aad u adag kaas oo dhabeyntiisuna noqoto mid isaga hadhowtooda u fududaada. waxyaalaha u horeeya waxa weeyaan horta inuu qofku ka shaqeeyo naftiisa. waxaa la dhahdaa ruux aan adkayn way adkaanaysaa ama yacnihii waxay noqonaysaa mid haddii qofka ruuxdiisu aanay adkayn waxay noqonaysaa mid u jilicsan duruufaha iyo waayaha nololeed. qof kastana inuu ognahay already waxaa ku gadaaman xaalad adag baa ku gadaaman oo kakan oo waayihiisa ayuu qof kastaaba already dhex muqooranaya. marka waxyaalaha u horeeya waxa weeyaan inuu ruuxdiisa qofku adkeeyo. qaabka ruuxda u adkeyn waxa weeyaan waa inuu kasoo baxo cibaadada. oo cibaadadu marka laga yimaado inay yacnihi dahiriso nafteena inay allahumma salli ala maxamed aynu ajar ka helo in ilaahay subxaana watacaala aynu ku raali gelino. waxyaalaha ugu weyn qabato waxa weeyaan qofka ruuxdiisa ayay dhistaa. marka number 1 horta qofka ruuxdiisa dhisto. waayo waxaa jirta dhalinyaro aad fara badan oo ka gaabiyey xaggii salaadii oo kale iyo cibaadaadkii kale taas oo keensatay in iyaga laftigooda deetana hadaftooda ay gaari waayeen. marka waxa horeeya waxa weeyaan koow qofku oo cibaadada ka soo baxaa oo noqonaya waajibka ugu muhiimsan oo qofka insaanka arlada uu joogo. qodobka labaad waxa noqonaya inuu qofku oo yacni garanayo waxa halka uu doonayo like meeshay tahay inuu gaadho. tusaale kale haddii tahay inuu dhakhtar noqonayo, haddii tahay inuu macallin noqonayo, haddii tahay inuu saxafi noqonayo, haddii tahay inuu noqonayo ganacsade. yacni in uu cadday qofku waxaan uu doonayo. qodobka saddexaad isagu heliyo labada qodob horena waxa uu noqonayaa in qofku uu u dadaalo. oo waxa weeyaan hawsha haddii aanad u dadaalna hadafka aad doonayso inaad gaadho haddana dadaalkiisii aanad la imaniyo awoodii iyo tabartii ay ahayd inaad ku bislaysato hanka ama aad ku gaadho aad bay u adkaanaysaa macquul noqon maysa inaad hadafka gaadho. marka saddexda qodob baa ugu muhiimsan. waa tahay xamse waxaa jira dhalinyar fara badan oo sidoo kale waxbarashadii hadday doonaan soo dhameeyay jaamacaddii soo dhameeyay haddana shaqo la-aan ka cabanaya. maysan dhalinyaradu aynay shaqo samaysan karayn iskood shaqo u abuuran karayn? maxaa u sabab ah shaqo la-aantan jirta ee dalka ka jirta? waxyaalo badan baa sababaya oo waxa weeyaan waxaa kamid ah in inta badan dhalinyarada reer Somaliland amba mostly dhalinyarada lagu tirtirsiiyay inay jaamacadaha ka baxaan aanay baranin xirfado kale. jaamacadina waxa yaala fakala inuu garanayno caama waa mid kale adduunyada cidda samaysa shaqooyinku maaha kaliya dadkan yani xafiisyada fadhiisanayaan laakiin shaqooyinku waxa sameeyay waa dad iyaga entrepreneurs la yiraahdo oo intay iyagu fikrad keeneen deetana fikradii ka shaqeysiyay deetana shirkad sidaa ku sameeyay ama goob ganacsi oo kale sidaa ku sameeyay. marka waxa aad muhiim u ah dhalinyarada amba yani wadankeena aad uga maqan xirfadihii gacanta oo kale. yani in qofka xirfadii gacanta yeesho waxay la fara badan u saamaxaysaa in haddii isagu yani uu email u shaqaale ka noqdo isaga laftigiisa uu ku shaqeysan karay. marka waxyaalaha inta badan keenaya waxa weeyaan in aan agenda loo dejin dhalinyaradii lagu shaqaaleysiyo in xafiisyadiina aad u koobiyiin cid ay qaadi karayso iyo in aanay jirin already amba dadka aan lagu dhiirigelin dhalinyarada lagu dhiirigelin inay xirfada gacanta oo kala bartaan. marka waxa u sabab baan oran karayaa waa nidaamka waxbarashada ee dalkeena yaala oo aan xoog u saarin dhanka yani xirfadaha gacanta oo kale inuu qofkii barto. waa tahay xamse maxaa looga baahan yahay qofka dhalinyarada ah inuu sameeyo si uu wax uga bedelo naftiisa iyo bulshadaba? waxyaalaha looga baahan yahay already waxay soo wasgalaysaa kulay su'aashii hore waxa ka noqonaysa inuu horta waajibka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dul dhigay ku waajibin inuu ka soo baxo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kilaha wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. marka yani cibaadadu waxay noqonaysaa mid kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofku uu arlada u dul joogo ay tahay inuu qabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray nolosheena. ka nolosha qofka muslimka gibigeed waa cibaado wax kasto qabanayana waa wax khayra ka soo noqonaya cibaado noqonaya. marka qaabka qofku waxa ku bedeli karay waxa weeyaan waa in uu ogaado naftiisa waxa la raado waa inuu sameeyo
self awareness ama inuu naftiisa ka warqabo inuu waqtigiisa siiyo inuu barto personalitygiisa waxa la dhado dabeecadiisa yani dabeecadkiisa kala duwan inuu barto iyo inuu sidoo kale uu ogaado yani caadooyinka dib u ridaya marka qofku si uu horumar u gaadho waxa u baahan yahay inuu samaysto caado wanaagsan oo gaarsiin karaysa waayo hadaf kasta ama han kasta wuxuu leeyahay caado isaga u gaaro lagu gaari karayo marka waxa aad muhiim u ah oo qofku ku dhisi karaya yani naftiisa iyo noloshiisaba waa in uu is ogaado shakhsiyadiisa si fiican u barto oo ka bogto taas uu saamixi karaysa in deetana uu deegaanka isaguna uu baaro oo uu fahmo deegaanka laftigiisa ku nool yahay sax waa tahay xamse sidee qofka dhalinyarada ah uga gudbi karaa caqabadaha nolosha lasoo gudboonaada ee lasoo wajaha caqabad kasta waxay leedahay xal lagu dhaafay leedahay caqabad way kala duwan hadday noqoto caqabad xagga waxbarashada oo kala hadday noqoto caqabad xagga dhaqaalaha hadday noqoto caqabad xagga qoyska marka horta waxa aad muhiim ah in qofku horta fahmo caqabada haysata nooca ay tahay waayo waxa la dhahdaa xog la heliyaa baa la helo qofku markuu awood yeesho inuu xogtii helo yani caqabadii haystay inuu helo nooca ay ahayd ayuu keeni karaya xalkiina marka waxa aad muhiim ah taaliftigeedana inuu qofku u fiirsado inta badan dadku way caawdaan amba yani dhalinyaro marka la eegayo way caawdaan laakiin ma garanayaan si dhabana umooga waxay ka cabanayaan marka waxa aad muhiim ah inuu qofkii bal horta isweydiiyo problemkan amba dhibaatadan ku haysata waa dhibaato nooceeya deetana waxa u sahlanaan karaysa inuu yani helo dariiqii uu uga gudbi lahaa caqabadaas waayo caqabad kasta waxay leedahay qaab loo xaliyo u gaarayada sax waa tahay xamse waxaa jira waayadan waxaa soo batay dhalinyartu waxay isticmaalaan baraha bulshada sida tiktoka oo aada busy ugu yihiin facebooka waqtigoodiina ay ku lumiyeen sidee ayay u maareyn karaan waqtigooda dhalinyartu iyaga oo isticmaalaya baraha bulshada marka la eegayo dhalinyarada adduunka oo dhan iminka waxyaalaha ama bulshada yani adduunweynaha oo dhan waxa ugu weyn ama caqabada haysataa waa taas inoo sheegto ah yani hadday noqoto waxyaalaha kala duwanaa social media ama baraha bulshada ahaa tani horta waxay noqonaysaa mid dhalinyaro fara badan awoodoodii la ciifisay oo hadday noqoto tusaalahaan oo kale qofkii dhalinyartaha wuu saamaleelaya saamaleelkaas wuxuu keensanaya inaan qofka u kici karin hadday noqoto waxbarasho hadday shaqo noqoto hadday noqoto wax kale oo isagu qabsan lahaa marka qaabka uu qofku uga faa'iideysan karaa waxa weeyaan social media waa loo isticmaali karaya si wanaagsan walow inta ugu badan dhalinyaradu aanay isticmaalinba yani waxa si wanaagsan oo lagu fidiyo waxyaalo aan yani qurux badnayn oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba aan wanaagsanayn marka qofku wuxuu uga faa'iideysan karayaa isagoo inta badan pageska ama pageska faa'iidada leh flow gareeyo oo kale oo yani raaca oo la socda oo wax ka akhrista sidoo kalena u sameeya time u sameeya amba waxa kale uu qofku sameyn karaa saacadiiba 10 minute oo kamid ah amba 5 minute oo kamid u yar eegi karaa deetana waxyaalaha muhiimka ah ama message-da u yaala muhiimka ah qofku ka jawaabi karaa nidaamkaas uu isticmaali karaa laakiin inta badan waxa dhacda in qofku maanta oo dhan uu eego hadba wixii la soo dhigay taas waqti badan ka qaadata waa tahay xamse dhalinyaradu sidee uga qayb qaadan karaan isdhexgalka bulshada iyo suulinta qabyaaladda siyaabaha ka qayb qaadan karaan imka waxaad moodaa waxaa jira xal aad u weyn oo kaasoo saamixi karaya aba sahli karaya in yani isdhexgalka dhalinyarada uu ka qayb qaato taasoo noqonaysa ururadii يعني bulshada oo kale yani dhalinyaradu ay qayb ka ahaayeen uradii aad bay u daciifeen deetana tani waxay keensatay in ay timaado already qabyaalada laftigeeda ay dib u soo laba kaclayso marka laga yimaado dhanka siyaasadda inagoon galaynin laakiin waxa aad muhiim u ah lagu yareyn karayaa qofkii dhalinyarta xataa camal noqon karaya in uradii uu ka qayb geli karayo urada wali ay daciifeen waxa aad muhiim u ah in aad loo dhiirigeliyo urada dhalinyarada waayo waxay qayb ka noqonayaan in awooddoodii ay uga faa'iideeyaan bulshada waxay qayb ka noqonayaan iyaga laftigoodii wixii uu camal u noqdo oo ay waxay ku mashquulaan noqdo waayo qofkii dhalinyaradaha awood buu leeyahay haddii aanu helin awoodda meel uu ku bixiyo wuxuu adeegsanayaa nidaam destructive ama nidaam dunduminaya mustaqbalkiisa iyo bulshadiisaba marka qaabka uga qayb qaadan karaan dhalinyaradu waxa weeyaan in nidaamka ururada aad loo xoojiyo dhalinyarada ee ka shaqaynaya gobollada kala duwan ee Soomaaliya صح وان قرتي واتاي حمسه dhalinyaradu door intee leeg ay ku leeyihiin siyaasadda dalka dhalinyaradu door marka la eegayo door aad active ah ama aad u xoog kuma laha siyaasadda oo ay waxaan ognahay siyaasiyiinteena mosalideeni dad waaweyn yihiin marka tan oo kale waxay noqon karaysaa waxa la radaa hogaamiyuhu waa ka soo saara hogaamiyaal kale waxa aad muhiim ah in dhalinyarada in kale barnaamijkii madaxweyne Muuse Bixiyo kale uu sameeyay shaqo qaran oo kale wuxuu wax badan ka qayb qaatay inuu soo saaro dhalinyaro badan oo hogaamiyayaal ah hadii noqoto dhankii military oo kale dhalinyaro badan ku dhiiraday in iyaga laftigooda wax hogaamin karayaan dhalinyaro fara badan bay niyadoodii dhisantay marka waxa aad muhiim ah in dawladdu ay ajenda ka yeelato in la soo saaro oo si gaar ah loo train gareeyo amba la sameeyo macahad u gaara dhalinyarada oo ay yani ku bartaan khibradii hogaaminta haday noqoto waayo hogaaminta ma wax kaliya ta jaamacadaha lagu bartaa dad hogaamin yani barato
macnaheedu maaha inaad noqonayso hogaamiye laakiin hogaaminta laftigeedu waa waxa la dhahdaa waa wax la dhaxlo ama waa wax qofka laftigiisa ku jira oo qofku u dhasho taas sidaa markaa si loo helo dhalinyaro hogaamiyaal waxaa loo baahan in loo sameeyo barnaamijyo lagu ogaan karayo dhalinyarada intooda ugu haldoorsan marka la eegayo xagga hogaaminta inahaasa aad yacnihii uga qayb qaadan karaya in la helo dhalinyarada dalka laftigiisa hogaamisa waayo dhalinyaradu waa mustaqbalkii yacnihii mustaqbalka dhow iyo maanta laftigeeda waxay hogaamintu keliya toon maaha inuu qofkii madaxweyne noqdo laakiin doorar kala duwan bay ka qayb qaadan karayaan taasaanan dhiirigelina in dhalinyarada loo sameeyo meel lagu train gareeyo khibrad ka qaataan xagga hogaaminta waa tahay xamse aada iyo aad ayaad umahadsan tahay waxyaabaha keena qofka dhalinyarada ah inuu ku guuldaraysto hadafkiisa kana hor istaagi kara qofkiina uu noqon karo qof dhalinyaro ah oo ka quustayba hadafkiisiis dhahayba malaa sidan xalba kuguma jiro maxaa ka mid ah waxyaalaha waxaa ka mid ah qodobo ku ka yahay waxaa la dhahdaa werwerka oo kale waxa weeyaan qofkii markuu stresskii ku dhaco waxaa dhacaysa xaalado kala duwan markuu isweydiiyo qofkii uu xal u waayo isagu u arko inaanu xal jirin cid yani professional oo aqoon u lana uu la wadaagi kari waayo ama cid kale oo uga waayo aragsan wuxuu ku imanaya yani isku buuq baa ku imanaya isku buuqaas deetana wuxuu keensanayaa in qofkii noloshiisi burbur ku yimaado oo qofkii aamino in aanu waxba samayn karin taasina ay dhalisay isdhiibitaanka waxaa la dhahdo oo qofkii isdhiibo oo uu joojiyo wax kasta oo noloshiisa ku badbaadin karayay ama ku noqon karayay qof safayfara oo noloshiisa u sameeya meel ama yacnihii jaho wanaagsan oo ku hormaro qodobka labaad markaynu ka nimaadno werwerka waxa uu noqonayaa in qofkii aanu lahayn hadaf cad oona cadin wuxuu nolosha doonaya dhalinyaro fara badan caqabada weyn haysta waxaa ka mid ah ma garanayn waxay doonayaan iyo waxay diidayaan oo noloshiiba isaga qasan fahmi kari waayo marka taana waxaa muhiim yani u ah oo xal u noqonaysa in qofku hadaf cad yeesho oo uu yani mawhibadiisii wuxuu ku wanaagsan yahay wuxuu jecel yahay uu tusaalaana kale uu barto ama uu tijaabiyo ama uu ku shaqeeyo waxyaalaha kale burburiya waxaa ka mid ah markaynu ka nimaadno qodobkan ah hadafaan cadayn wuxuu noqonayaa waxa la dhahdo qofkii ku adkaata yani inuu sameeyo inuu bulshada dhex galo oo waxaan la interpersonal skills ama xirfadaha dadla dhaqanka ay ka yaraadaan ama aanu awood lahayn dadka yani si fiican ula dhaqan karayo waayo qofku inuu hadaf gaadho oo inuu horumar gaadho waxaa qayb ka noqonaysa bulshada la noolaa iyo dadka la noolaa waxaa la dhahaa qofku uga furfuran yahay dadka ee uu yani asxaab badan yahay ama ka dad wanaagsan badan yahay ee uu dadka ka dhex yani gali og yahay ayuu ka horumarsan yahay nolosha marka tanoo kale waxay keensanaysaa haddii qofkii bulshada dhex geli kari waayo ahdaaftiisa yacnihii waxyaala fara badan baa ka hor istaagi karaya kuw ka tahay inaanu bulshada dhex gelin waayo cid bay kaaga xidhanto qofna keligiis ma bixin karo bulshada kuga hareeraysan bay yani kaaga xidhan waxyaala fara badan taasina waxay u baahan tahay dhaqan wanaag bay u baahan tahay iyo inaad barato qaabka loola dhaqmo dadka kuga hareeraysan saddexda yacnihii qodob baan odhan karaa waa ka qayb inuu qofku noloshiisa yani noqoto waa tahay xamse ugu dambeyntii maxaa talo iyo waana iyo tusaale usoo gudbinaysaa dhalinta ku daawanaysa caawa waxyaalaha aan usoo gudbinay waxaa kow ka noqonaysa hadday tala noqoto dhalinyar ahaan maanta qofku markuu dhalinyar yahay waa xilligu uga awooda badan yahay waa xilligu yani hal abuur yani la iman karayo hadday fikri noqoto waa xilligu yani uu hayo energyga ugu badan ama waxaa la dhaha tabarta ugu badan wax ku qabsan karayo waa xilliga uu samayn karayo tijaabooyin fara badan xataa haddii ay suurtagal noqon weydo waxa uu tijaabiyey in uu si kale uga digarooban karayo marka waxa aada muhiim u ah dhalinyar ahaan in aynu fahamno doorkaynu bulshada yani ka qayb qaadan karayno horumarka bulsheed in aynu fahamno inaynu nafteena yani kalsoonideena aynu dhisano oo waxaa la dhahdaa qofku haddaanu kalsooni lahayn isaga laftigiisa caadi isku ah kalsooniduna waa awoodda kashaada haddaad ku beerto baa la dhahdaa kurbada baqashada daweysa kaa reebtana daciifsanaanta inaad ka sarraysa qeyrka awoodda ku siisa weyaan yacni waxa uu awoodda badan le ay tahay qofka dhalinyarta maskadiisa waa kalsoonida marka laga imaado aqoonta qodobka kale ku-xiga waxa uu noqonayaa in qofka dhalinyartii uu aada u xoojiyo cibaadadiisa waayo cibaadada waa xadhigga inaga ilaahay subxana wa tacala inoo dhexeeya haddaynu adkeyn weyno nolosheenu khasaare ku sugnaanaysaa si kasta inu gaano han adduunyo halkaynu socnaa waa aakhiro weyaan marka in aynu aada u xoojinay xidhiirka ilaahay subxaana wa tacaala ayaynu la leenahay taasoo noqonaysa halkay nolosheenu ka dhaqaaqaysa oo qofba qofku ka cibaado wanaagsan yahay ilahay uga dhigay subxana wa tacaala uu ka firfircoon yahay uu ka fudud yahay noloshuna kuma noqoto caqabad kuma noqoto mursaliin oo wuxuu kaga gudbaa sabirka iyo in ilaahay subxana wa tacala u fududeeyo umuurihiisa qodobka ugu dambeeyaan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan in inta aynu noolahay aynan isdhiibin inta yani suxulkeenu dhulka ka sareeyo in aynan isdhiibin duruufuhu way imanayaan oo noloshu aad bay u adag tahay waqtiyada qaarkoodna waxaa laga yaabaa qofku in uu ku fikiraba in waxaanu doonaya aanay suurtagal ahayn oo ay caqabado fara badan ka hor yimaadaan marka inaynu nafteena ka xaaraantinimayno waxaa la dhahdo isdhiibitaanka
oo aynu yacni inaynu isku dhibno ama aynu isku dhibno duruufaheena waa inaynu mar kasta ku dadaalaa inaynu u jihaatano sidii aynu u gaari lahayn waxa aynu doonayno nolosha inta aynu noolahay صح ما شاء الله أدي أدبد حمسي أمها سنتهاي daawadayaal intaa waxaa nagaga eeg barnaamijkeeni doorka dhalinyarada aniga iyo intii gala qayb qaadatay dhammaantay annagoo isku duuban waxaan kaga tegaynaa salaamullaahi calaykum